maamulka sare shirkadda dahabshiil ayaa maanta waxay ku wareejiyeen gaari ambalaas ah deegaanka buuhoodle haddaba munaasabadii lagu wareejinayay gaarigaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee shirkadda dahabshiil wasiirka howlaha guud iyo guryeynta ee Somaliland iyo sidoo kale waxgarad iyo cuqaal ka tirsan deegaanka buuhoodle ugu horreyn buu halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta sare ee shirkadda dahabshiil waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bismillah haddaan nahay shirkadda dahabshiil waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ku wareejino wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo odayaasha buuhoodle ee garaadada iyo madax dhaqameedka ay ka mid yihiin oo goobtan la jooga gaarigaas oo shirkadda dahabshiil group ay ku deeqday gobolka buuhoodle si uu caawiyo dadka ay dhibaatada u geysto xanuunka COVID-19 iyadoo hore shirkaddu gacan uga geysatay gobollada kale oo dhan ee waddanka iyo deegaanada Soomaalida oo dhan oo ay ku deeqday mashiino oxygen-ta iyo gawaari ambalaasaba waxaan ku soo dhaweynayaa maariyo ku-xigeenka guud ee shirkadda Cabdiraxmaan Cali Cabdi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن إلهي باب مهدله مركز اللباد وحشرفنا شركة دابشيل جروبهان إن المانطقة قارجان أمبلاسكا كوري تشنو وسيرك عبد الرشيد أبلا جود يو وضياشة مدح رقمياتك سياسيين تا يو حجرتك غير بوه الله أنت هالكن شوكة قارجا شركة دو وحي وطلق شيء inuu u adeego reer buuhoodle dadka danyarta ah inuu u adeego maadaama aynu xaalad adag ku jirno inuu u gaadhsiiyo meelaha dee ilaahay baan ka rajaynaynaa caafimaad inuu ummaddan siiye meelaha wixii u baahda oxygen ama meelo loo gudbin karo inuu u gudbiyo oo gaadhsiiyo waa gaari cusub oo wakaaladda laga soo qaaday waxaan rajaynaynaa inuu hawshaa shirkaddu ugu tala gashay uu fulin doono oo qaban doono waxaan kaloo qalabkiisii iyo oxygen-tiisii iyo wixii uu gaari ambalaas lahaana waa u dhammaystiran tahay waxaan rajaynaynaa ujeeddadaa shirkaddu ugu tala gashay inuu qabto waxaan rajayn doonaa inay ka faa'iidaysan doonaan reer buuhoodle siiba dadka danyarta ah ee gobolka waxaan rajayn doonaa in dayactir iyo ilaalin ay dee ku samayn doonaan odayaasha iyo dadka mas'uuliyiinta ay gacanta ku qaban doonaa sidoo kale Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay sababta ku dhalisay shirkadda dahabshiil inay bixiso gaarigan ambalaaska sababteeda waxa lahaa ilaahay khayr ka siiyay wasiirka ayaa la hadlay Xaaji Maxamed Saciid gudoomiyaha shirkadda dahabshiil isagoo waliba safar dibadda markaa ku maqan markuu duruufahan xaaladan adag ee waddanka ee deegaankii iyo dalkaba ka taagan ee COVID-19 uu sababay isagoo oo maskaxda ku haya war gobolka waxa laala wixii aad maanta tari karayso nagala qayb qaado iyadoo markii horeba dee dawladuna qaybteeda ka qaadanaysay dadka ganacsada kalena qaybtooda ka qaadanayeen sababtaas uu ku yimi gaarigu xaajiguna isagoo dee dareensan deegaanka horena dee gacantiisu ay uga qayb qaadan jiray duruufaha ka jira markiiba go'aanka degdeg buu qaatay waxaanu shirkadda maamulkeeda ku amray in gaari degdega oo waliba gaari cusub ah la soo iibiyo saasuu gaarigu ku yimid wasiirkana aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waxaan u rajaynayaa guul iyo nabadqab ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu xanuunkan daran ee aafada ah ee inagu soo kordhayna inaga dulqaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin gaarigana miftaaxa waxaan ku wareejinayaa wasiirka howlaha guud oo garabkaga taagan si uu isna ugu wareejiyo ciddii markaa gaadhsiisa gobolka gaarigii iyo mafaatiixdiisiiba gudahana waynu ku tusi doonaa wixii qalabaha saaran waxaan rajaynayaa nabadqab ku tagi doono buuhoodle waxaa iyaguna sidoo kale uga mahad celiyay shirkadda dahabshiil gaarigan ambalaaska ay ku wareejisay qaar ka mid ah waxgaradkii mas'uuliyiinta deegaanka buuhoodle waxaana hadalladoodii ka mid ahaa barakaatu dhammaanba inta ka soo qayb gashay xafladan wareejinta baabuurka shirkadda dahabshiil group ay ugu deeqday gobolka buuhoodle ee ambalaaska waa sidaa looga soo sheekeeyey waa gaariga aad aragtaan waa gaariga cusub waa gaari baahi badan loo qabay dahabshiil group waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro kaalmo badan baad u geysateen dadka gaar ahaan buuhoodle oo dhowr kaalmooyin badan baad u geyseen anaba kamid ah dad idinku yimid waqtiyada kamid ah jaamacadda buuhoodle idinka soo doonay qaaraan oo maanta waad nala kaftanteen waxaa tahay dhulka ka dhan jaamacadee wada yeesheen dad idinkuna soo gaadheen dadka jaamacad yeelanaysaan waanu bixinaynaa waxa kastoo naga soo hagaagay dhawaanna waaba idinka jaamacadda howlaha badan geliyey wax badan baad dadka u qabataan ase haatee magaca buuhoodle gaar ahaan baan idinku mahadnaqayaa iyo waxqabadkiisa
reer buuhoodle ninkuu gaadhigaa ilaashada guud ahaanba ninso iyo madaxba intaad la eg tihiin gaadhigaa waxa weeyaan waa gaadhi dadka ka dhexeeya waa gaadhi qof gaara aanu lahayn waa gaadhi dan gaara aan loogu talagelin waad ogtihiinoo 2 habeen ka hor gaadhi hore ambalaasa ma lihin waa ka dambaynaaba dadka dhinaca marka laga hadlo 2 habeen ka hor nin loo baahday in laga soo qaado buuhoodle waynu wada garanaynaaye ambalaaska burca looga diray si ay Hargeysa u soo gaarsiiso burca laga diro burcay ka tagto buuhoodle tagto halkaas ay ka soo qaado Hargeysa keento baahida intaa la eeg farabadnaanta intaa lag baynu qabnaa gacanta iyo afka iyo ilkaha iyo meel walba iyo lugaha gaadhiga ilaalintiisa hawshiisa waa inaad gidigin ka wada dadaashaan waa gaadhiga dhamayska tiran waa gaadhiga cusub waa ilaahay ku sii waa marla arag idinkana intaasaan idin leeyahay dhammaanna waa u mahadnaqaya ka soo qaybgalayaasha xafladda mar labaadna waa u mahadnaqayaa shirkadda dahabshiil group aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaa mahadle ilaahay isugu keenay madashan ilaahay baa mahadle marka ku xigta waxaa mahadle shirkadda dahabshiil group haddii aanu odayaashii buuhoodle nahay oo garaadadiina nagu jiraan odayaashii dhaqankuna nagu jiraan aanu markhaati ka ahaano baabuurkaa cusub oo ay siiyeen buuhoodle aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa goobjoogna waa ka nahay iyo markhaati waxaananu ku dadaalaynaa inaanu gaadhigaa ilaashanno idinna waad mahadsantihiin maalkana allaha idiin barakeeyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa shirkadda dahabshiil group oo dhammaantood aad muddo sida odayaasha hore ay uga dhawaajiyeen muddo buuhoodle la barbar taagnaayeen mar walba wax allaala wixii baahiyahee soo kordha waxaan kale u mahad celinayaa maxamed siciid ilaahay ha barakeeyo ilaahay khayr ha siiyo waxaan farayaa uun reer buuhoodle inay ilaashadaan oo aad u ilaashadaan hantidaa dadka jilicsan la siiyey ee dhibaataysan dahabshiil gurubna waxaan leeyahay allah idin barakeeye intaa nagu ilaawin intaa nagu daynine mar walba naga warhaya oo xaaladaha iyaga mar walba ka warhaya alxamdulilah ilaahay baa mahad leh maanta na kulansiiyey inaanu goobtan isugu nimaadno oo gaadhigan ambalaasta ee qalabaysan ee casriga aanu kala wareegno dahabshiil group oo musaacide ahaan ay u siisay deegaanka buuhoodle oo runtii dayac aad iyo aad u fara badan meesha ayadaa uu ka muuqday ayna timid xilli xaaladdu ay ku habboonayd haddii la eego xagga xanuunkan safmarka ah ee iminka dalka aad ugu jira abaaraha jira degmadaasoo dalka markii horeba ka dambaysay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa dahabshiil group ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro jasaakum allah khayr